daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta Bollywoodka ah. Barnaamijka falaqaynta Bollywoodka waxa ku soo qaadanaynaa jilaayaasha Bollywoodka. Ranbir Kapoor iyo Kareena Kapoor ayaa si kooni ula hadlay saxaafadda, ayagoo xusay inaanu midba midka kale la keeni doonin filim romantic ah ama jaceyl ah sababa la xiriira dhiigooda oo islehtartiis, maadaama ay yihiin ilma adeer balse ay matali karaan filimo nuuc kale ah. Ranbir Kapoor oo ka hadlaya arrinkan ayaa sheegay in Kareena ay tahay qof mudan ama u qalanta, laakiin ay walaashiis noqotay, sidaa darteedna weligee lama samayn doono filim jaceyl ah ama la isku soo dhawaanayo oo la qaybsanayo romantic. Kareena Kapoor ayaa ayadana xustay arrinkan, iyadoo tiri ma ahan mid habboon maadaama aan walaalo isku dhiig ah nahay Ranbir, laakiin hadduu uusan ahaan lahayn walaalkayga aan jeclaan lahaa inaan ku baashaalo, maadaama gabdhaha Bollywoodka haatan ay ka helaan Ranbir Kapoor in ay ku dhegdhegaan, laakiin waxaa ii diiday taasi walaaltinimada, sababtoo ah Hindiya waa isku mid, ina adeerka iyo walaalka. Kareena Kapoor oo lagu naanayso Bebo iyo Ranbir ayaa waxaa awoowo u ah superstarkii Raj Kapoor, iyadoo uu Ranbir yahay inanka uu dhalay jilaakii Rishi Kapoor ama Rish Kapoor, halka Kareena Kapoor uu dhalay Ranbir Kapoor.